waxaa sharaf weyn maanta iya inaan soo qaatay foomkii musharaxnimada dowlad goboleedka Jubbaland maanta oo ay tahay 20 bisha 7 2019 maalin sabti ah taas oo cadaynaysa inaan u hoggaansamayno processka ama jadwalka ay u dejiyeen guddiga doorashooyinku ee dowlad goboleedka waxaan rabay inaan wax yar ku daro markaa waxaa in badan laga hadlayay oo la isweydiinayay doorasha ma dhacayso iyo extension baa la rabaa iyo sidana la doonayaa waxaan filayaa inay markhaati u noqonayso dadka reer Jubbaland iyo inta xildhibaanka musharaxiinta kulligood inay arkaan in processkaas sidiisa ku soconayo doorashaduna waqtigii loogu talagalay ay dhacayso waxaan ugu baaqayaa markaa dadka reer Jubbaland inay ka shaqeeyaan amnigooda wadajirkooda iyo doorashadooda say u qabsan lahaayeen oo u dooran lahaayeen mustaqbalkooda iyo ciddii waqtiga ku xiga sii hogaamin lahayd arrinta musharaxiinta saaxiibadaya waxaan rabaa inaan u sheego haddaad shalay ku cabanayseen doorasha ma dhacayso maanta ay idiin xaqiiqowday waxaa asala doorashadaa dhacaysa ee laga hadlayo eed sheegteen inaad doorasho gelaysaan inaad u diyaargarowdaan oo aada ilaalisaan anshaxa nidaamka iyo sida ay doorashada iyo habkeedu ku soconayo waxaan ahay madaxweynaha hadda joogay ee statekan maamulayay magacaabista guddida aan magacaabay waa xuquuq dastuuriya sharcigaa siinaya laakiin wixii intaa ka dambeeyey inaan anu magacaabay wixii ka dambeeyey guddiga shaqadooda iyagaa iskale maanta waqti bay qabsadeen waxaan u hogaansamayaa wax kasta oo sharci ah oo caalami ah oo shuruucda lagu dhaqmo oo guddidaas madax banaanidooda taa marka waxaan rabaa in loo ogaada sidaasoo waxaan anigu aanan kula mid ahayn inay jirto xuquuqda dastuurka ah oo siinaya aan qaadanayo arrinta kale oo dad waaweyn oo siyaasad doonaya inay hagaan oo hadday sidaasi dhici weydo tsunami baa dhacaya oo qaxootigaa lagu noqon oo dagaal baa dhacayo waa la barakacayaa waxaan leeyahay erayada noocaasa waxay leeyihiin cirib xun oo laga dhaxlayo waxaan rabnaa in la joojiyo hadallada keeni karaya inay dhibaato u horseedaan dadka sababtoo qofka doonaya inuu maamulo dee meel fawda ka dhacdo dhibaata ka dhacday oo dagaal uu ka ridayo maamulkeedu waxbana uma soconayo waxbana uma tarayo waxaan garanayaa electionkii ugu horreeyey Jubbaland la dhisayay oo markaa xaalad dagaal aanu ku jiray dowladdii xilligaa jirtay inay intay barnaamijkaa ka hor timid 6 madaxweyne ay ku dhawaaqeen iyadoo dowladda laleeyahay hoolkii waa kan weliba xilligaas dhismay ahayd ma ahayn state sharciyadiisu dhammaystiran yihiin oo isagu wax qabanaya waxay ahayd dowladda federaalka markaa wax laga rabay in iyadu dhismihii stateka la timaado intay diideen inay gaadhay in xabad la rido dhibaata dhacdo intaasoo madaxweyne meeshay ku dambeeyeenna waan garanaynaa iyo waxay noqotay dhibaato yaan la horseedin amniga yaan la khalkhalgelinin reer Jubbaland midnimadiina iyo nabadgelyadiina ku fara adayga hanjabaad iyo kanaan la yeeli iyo sidaan la yeelayaana qofna laguma waxayn karaya amniga aan ka wada shaqeyno weliba saaxiibaday dadkii halgankaan aan kusoo wada jiray ha xusuusteen shalay waxay soo mareen saaxiibadood meeshay kaga tageen dhibaatada la soo maray ninkii xil raadinaya si sharaf leh oo xor ah oo dimuqraadiyada ha ku raadiya laakiin yuuna ku raadinin dhibaato iyo carqalad iyo mushkilad foomamkana qaata soo dhawaada tartama